wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Saad Cali Shire iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dabcan wasiirka wasaaradda beeraha iyo xubno kale ayaa maanta waxa ay kulan la qaateen wafdi ka socday midowga Yurub oo boqosho ka yimid magaalada Hargeysa kuwaas oo u yimi sidii ay u ogaan lahaayeen xukuumadda Soomaaliland qaabka ay u qorsheysay in si gooniya loo caawiyo iyada ugu horreyn wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka oo warbaahinta la hadlayay ayaa arrimahaasi sheegay waxaana uu yiri waxa maanta halkan inoogu yimi oo inoo martiya wafti ka socda maxaan idhahdaa EU-da amba wadamada ku Yuroobay ama ku bahoobay maxaan idhahdaa ururka EU-da iyo xubno ka socda safaaradaha Sweden iyo Denmark iyo xubin ka socota ururkan OECD la yiraahdo wadamada horumaray ka socda waxay inoogu yimaadeen inay ina dhageystaan oo ay nagala qayb galaan heshiis aynu diyaarsanay amba hab laynoo caawinayo aynu diyaarsanay oo aynu doonayno inay EU-du inoo caawiso amba wadamada Yurub ay noo caawiyaan marka waxaan u soo bandhignay waxyaabaha inoo mudan way naga dhageysteen waxay ka bixiyeen iyaga laftigoodu tacliiqina ka bixiyeen insha Allah waxa weeye waa qoraal wali qabya oo socda wiiga soo socday waxaan isku dayi doonaa markaanu tixgelino wixii afkaara ee nala siiyay maanta inaanu qaadno aanu geeyno maxay Nairobi oo kala hadallo deeq-bixiyayaasha mashruucna waxa weeye waa mashruuc ilaa 2 sano ilaa 3 sano loogu talagalay oo ay tahay inuu muddada ku soo bandhigno inay ku baahideenu waxay tahay sidii doonay inay noo caawiyo waxaan jecelahay imkaan inaan siiyo kelmadda marka uu soo dhaweeyo Isabel oo ka socota EU-da inay kelmadda talaan international the European Union, Denmark, Sweden and also OECD World Bank to have a technical discussion with led by the Ministry of Planning and also with the important presence of other ministers in view of discussing the New Deal process in Somaliland, and that New Deal process will be translated into a compact that will be an agreement between the international community and Somaliland, so not only the government but also the civil society, focusing on a number of limited priorities in view of making Somaliland a better place to live. Thank you very much. I would like to leave I'm trying to kelmadooda dameeyana siiyo wasiirka xariijiga bismillaahi raxmaan waxa dhameeyay qofkii ka hadlayay EU-da sida wasiirku uu sheegay aadna aan uga hadalay issue la New Deal ajendaha iyagu oo hadaan Soomaaliland nahay in deal annaka noo gaara oo ku saamaysan wadciga iyaga iyo reality-ga waddanka yaala iyo development state-ka aan jirno waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii halkan maanta wasiirku planning ku soo casuumay wasaaradda kalaba ay nala garteen inaanu wada shaqeyno insha Allah saa wasiirku sheegay in Nairobi la isugu tago hawsha abyadaana aynu dhaqso u dhamayno waxaan ajendaheenu yahay inaan dhaqaale iyo horumar iyo lacag iyo kharash weydiisano waxaanoo qabta oo waxyaabahan aad ugu baahanahay kamid ah aad iyo aad baa mahadsantihiin Ibrahim Abdurrahman Qaasin Hordan News xafiiskeeda magaalada Hargeysa.